waxaa maanta kulan la qaatay guddiga difaaca arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Somaliland taliyaha ciidanka qaranka Somaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland kulankan oo ahaa kulan ay warbaahintu dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta si wadajir ula hadlay gudoomiyaha guddidaasi iyo sidoo kale wasiirka gaashaandhigga waxaana ugu horreyn warbaahinta la hadlay gudoomiyaha guddidaasi Cabdiraxmaan Balaaki waxaana uu sheegay isla markaasina sharaxay kulankani waxa uu daranaa iyo sidoo kale waxay mas'uuliyiintan kala wada hadleen oo aanu kula kulanay halkan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada qaranka oo aanu ku kulanay halkan shir labada geesood ah oo ku saabsan warbixin guud oo xaaladda dalka iyo wada shaqaynta golaha wakiilada iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo howlaha ciidamada warbixin guud oo aanu kala qaadanay howlihii aanu u igmanayn aanu golaha wakiilada uga imaanay qarankaba ayaanu ka wada hadlaynay ka wada shiraynay isla afkaranay si wanaagsan talooyin wixii aanu isdhaafsanaynay iyo wixii aanu isdhiri waan ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee ayna inta ka bacdi ayaa isaguna waxa mikrofoonka qaatay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Somaliland kaasoo ku nuuxnuuxsaday taliyaha oo kamid ahaa sarkaalada Somaliland isla markaasina ka goostay kana soo jeestay maamulka Puntland waxyaabaha ku sababaya sidoo kale arrimaha ay ka wada hadleen oo ugu muhiimsanaa arrinka caare wanaagsan soo gaarintaasi ka hadlaya goostay macna sameyn maayo hawaya picture-ka waxa weeye ama waxa su'aashu waxa weeye waxa laga qaataa ama laga dheedaa xogta weyn waxay xambaarsan tahay xogtu waxa ku soo ururaysaa jabhadda ka abuurantay gobolka Sanaag maxaad misla soo qaaday wax miska weydiiseen maxaad kaga arisatay si mugle oo waafiya baan uga wada hadalay waxay talo naga kordhinayaan baan isweydaarsanay waa wax dareenka aanu qabno ka wasaaradaan iyo ciidan ahaan ama ka qaran ahaan ba marka dawladaanba bay guddiguna qabeen inay caqabad ku tahay qarannimada inay dhigbax ku tahay nago filaasano qaran ahayn jiray in maanta jabada dhexdeena ka abuurmaan boog inay nagu tahay oo dheelaacayn ay ku tahay boog qarankeena ku tahay baanu isla aragnay sida ugu munaasibsan ee hawsha lagu soo afjari karo inaan ka qaran ahaan iyo ka dawlad ahaanba iyo ka guddi ahaanba ay nagula taliyaan qaadano hawshaasina sida ugu dhaqsaha badan insha Allah ay soo afjaran baanu isla ninka caare la yiraahdo waa ogtihiin abaanduulihii talgootada saddexaad ee ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland ee gobolka Sanaag abaanduuliheedii buu buuxay soo saamo ogdi sabab kasta ku dhacday khilaaf yimi buuxda uga goostay askar iyo maleeshiyaad qoyskiisana buu samaystay shirkii wada hadallada lagu heshiisanayay beelihii walaalaha halka xurgufta ka dhaxaysay baayana ka dhinacsooday wada hadalladii iyo shirkii alxamdulillah wana soo dhamaadeen wajigii labaad wuxuu ahaa hawsha caare iyo nimankii dhalinyaradii la caraysnayd wax kasta tabanayeenba in ka guddi ahaan ee guddigii qaranka ee ama dhexdhexaadinaysay shirkii daadinaysay ka socday elaf weyn iyo ka qaran ahaanba mas'uuliyiin dawlad ahaanba in la galo bay ahayd kulankan wada qaateen taliyaha ciidanka qaranka Somaliland iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga iyo guddida difaaca arrimaha gudaha ee golaha wakiilada Somaliland ayaa waxa uu imaanaya ka bacday amniga dalka ee arrimaha gudaha Somaliland ay ka jireen arrimo ay kamid yihiin arrinka caare iyo arrimo kale وخضر إسماعيل محمد عبد الرشيد فهي مقبهية عالمية بدعستون فور تي في مقالة هرقيسة